kulan wacan daawaday waxaad ku soo dhawaataa janaalkeena leewaya filmis oo aad kaga barateen inaad ka daawataan warbixinadii la xiriira aktaryaasha ugu caansan Hindiya iyo kuwooda haatan u halgamaya inay noqdaan aktara magac ku leh Bollywoodka. haddaba haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ama janaalkeena leewaya filmis fadlan subscribe noo dheh, comment ka baxso, like ta saar, sidoo kalena gambalaalka furo si aad u hesho warbixinada ugu dambeeya ee halkaan aan soo dhigno. maqaalkeenan gagaaban maanta waxaan ku eegaynaa jilaaga malmahana ee u shidan tahay jikada Bollywoodka marka loo fiiriyo guulaha ay gaarayaan aflaamtiisa sida Dream Girl, Andadun, Bala, Badayo iyo sidoo kale Article 15. waxaan eegaynaa jilaagan ee xili ay ku hareersanaa cabsida ah film jilista inay ka dhex muuqato filmada doorar kala duwan aad jishid kulana aad gaarto laakiin aad iska hilmaamto cabsida. haddaba aan isla eegno micnaha ereyada laga diiwaangeliyay xidiga Ayushmann Khuranna ee guulaha u saaxiibka ah. waxa kaliya aan ka aaminsanahay ayaa inaan qof cabsan aad noqoto mar haddii aad aragto guuldarooyinka badan ee xagga nolosha. waxaan arkay guuldarooyin badan xagga nolosha ah. waxaan haddii ii jar ahaa qof tartama, waxaan haysan jiray silsilooyin si aan aadaheena aan ugu dhaaran jiray. waxaan haystay kuntin, waxaana ku dhacay tijaabooyin badan. waxaa jira waqtiyo xiliga iskuulka ahaa goortii aan quus ka taagnaa tiyaatarada maheli jirin door hogaamineed, maxaa yeelay waxaan ahaa qof caato ah, xitaa waan gaabnaa. waxaan xili walba bari jiray ilaahay, kadib waxaan wax ka sameeyay tiyaatarada kale ah Jandigad, Jantra iyo sidoo kale Azad. waxaana ahayn kuwo kaliya ee ka socday Bollywood Town oo u tartama loona dejiyo urban sida IIT Bowai iyo sidoo kale British Bilani. waxaan si group ah u tagi jirnay tiyaatarada halkaasi ku yaala. waxaan u masraxin jirnay nooc walba oo dadka ka mid ah sida xaafadaha iyo meelaha walba oo safar u tagi jirnay geeska gees dalka oo dhan. waxaan xasuustaa inuu jiro tareen la yiraahdo Punjab Mail oo 48 saacad ku qaadan jiray inuu naga soo qaado Jandigad nageena Mumbai. waxaana garaaci jirnay gataaro oo ku madadaalin rakaabka tareenka saaran, lacagna waan ka qaadi jirnay. mid aan ogahay ayaa ah asxaabteeda qoyskeeda kuwa aan isku galaaska nahay weligood kuma fikirin inaan actor film hogaamiye noqdo. weligeyna waan tartami jiray ayaa laga soo xigtay xidiga Ayushmann Khuranna ee filmada ka dhex muuqda Hindiya. waana sidoo kale actor heesaaye iyo kuwa qabta barnaamijyada abaalmarina lagu bixiyo.